Bal qiyaas qof ayaa maanta fadhiya asagoo turjumaya qoraal af Soomaali ah luqadda Ingiriiska. Wuxuu ku qaadan karaa saacado badan. Qof kale ayaa gacantiisa ku sawiraya sawir. Qof saddexaad wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo cod ama muuqaallo. Qof kale wuxuu xisaabinaya lacag badan asagoo isticmaalaya calculator. Laakiin berri ama sanado yar kadib, AI ayaa laga yaabaa inuu shaqooyinkaas qaarkood ku qabto ilbiriqsiyo yar gudahood. Waxaad ku dhihi kartaa AI-ga ii samee sawir moos ah oo af leh, socda, hadlaya, oo xitaa telefoon isticmaalaya. Waxaad sugaysaa daqiiqado yar, waana kuu samayn karaa. Markaa su-aashu waxay tahay, haddii mashiin uu shaqada aad qabanaysay uu ku qaban karo ilbiriqsiyo gudahood, maxaa ku dhacaya shaqadaadii? AI ma bedeli doonaa dadka, mise waxay dadka siin doontaa awood cusub oo aan horey loo haynin? Maanta ayaan si dhab ah u eegi doonaa AI maanta waa maxay. Marka aan nidhaahno artificial intelligence mise AI, kama hadlayno robot keliya oo lugo iyo gacmo leh. AI waxaa noqon karaa software ama nidaam kombiyuutar ah oo awood u leh inuu xogo badan ka barto, aqoonsado qaabab, fahmo amarro, kadibna soo saaro natiijo. AI-ga maanta wuxuu awood u leeyahay inaad la hadli karto, inaad wax weydiin karto, inaad sawir u diri karto, inaad qoraallo u diri karto, amba xitaa aad cod u duubi karto. Kadib waxay kuu samaynaysaa inay kuu soo saarto jawaabo amba natiijado. Waxa ugu la yaabka badan ayaa ah in AI-ga maanta uusan ku koobnayn keliya xisaabaad amba tirooyin. Waxay qori karaan, waxay turjumi karaan, sawirro ayay abuuri karaan, xitaa waxay ka caawin karaan barnaamijyo samayskooda. Waxay falanqeyn karaan xog dhaadheer, xitaa buugaagga dhaadheer ayay kuu soo koobi karaan. Waxay xitaa ka caawin karaan inuu qofka fikrad uu maskaxda ku hayo uu u beddelo muuqaallo amba qoraallo. Taasi waa sababta aan maanta uga hadlayno arrinka aadka uga weyn robotka. Waxaan ka hadlaynaa isbeddelka socda shaqada bini'aadamka. Marka hore aan ku bilowno waxaan horey u soo aragnay telefoonka. Si aan u fahanno waxa AI-ga keeni karo, marka hore aan wada eegno waxaynu wada naqaano telefoonka casriga ah. Bal ka fikir telefoonka aad maanta jeebka ku sidato. Hal qalab ayaa bedelay amba isku daray qalabyo badan. Horey waxaad u baahnayd touch, hadda telefoonkaaga ayaa leh flashlight. Horey waxaad u baahnayd calculator, haddase telefoonkaaga ayaa wax xisaabin kara. Horey saacado ayaa loo baahnaan jiray, haddase telefoonkaaga ayaa saacada tusi kara. Horey waxaa gidaarka lagu dhajisan jiray calendar, hadda waxaa leh telefoonkaaga calendar. Horey waxaa loo isticmaali jiray kamarado gaar ah, haddase telefoonkaaga ayaa kamarad leh. Horey raadiyo gaar ah ayaa la isticmaali jiray, haddana telefoonkaaga ayaa laga dhagaysan karaa wararka, muuqaalada iyo raadiyadiisa. Horey waxaa jiri jiray khariirad gaar ah, haddase GPS ayaa sheegi kara meesha aad joogto. Waxaasoo dhan hal mar ma wada dhicin. Telefoonkaaga si tartiib tartiib ah ayuu u bedelay nolosheena. Taasi waa qodob muhiim ah. AI-guna waxay u badan tahay sidaasoo kale inay ku dhacdo. Mana aha in hal maalin uu robot yimaado uu qof kasta shaqadiisa ka qaato. Waxaa laga yaabaa inay noqoto hal shaqo maanta, shaqo kale berri, shaqo kalena sanadka soo socda. Ugu dambeyn, waxaan ogaan karnaa in habkii hore uu si weyn isku bedelay. Aan qaadano tusaale aad u fudud. Qof ayaa haysta qoraal af Soomaali ah, wuxuu rabaa Ingiriis. Horey waxaa laga yaabaa inaad raadiso qof yaqaano luqadda Ingiriiska. Qofkaas uu akhrinaya qoraalka, uu fahmaya, kadib gacantiisa ama keyboard ayuu ku qoraya turjumada. Laakiin maanta waxaad siin kartaa qoraalkaas AI-ga. Waxaad ku oran kartaa, qoraalkan af Soomaaliga ah iga dhig Ingiriis. Dhowr ilbiriqsiyo kadib waxaad heli kartaa natiijado. Laakiin halka waxaa muhiim ah inaynan oran AI-ga mar walba waa saxan yahay. Maya, AI-ga waa qaldami karaa. Af Soomaaliga waxaa ku jira micne, dhaqan, lahjado iyo erayo xaalad ku xiran. Sidaas darteed, qof aqoon leh ayaa weli muhiim ah inuu hubiyo natiijada. Laakiin hal arrin ayaa cad, xawaaraha shaqadu wuu isbedelay. Shaqo qaadan jirtay waqti dheer waxay heli kartaa caawimo degdeg ah oo badan. Halkan ayay arrintu kasii noqonaysaa mid yaab badan. Hadda aan tagno meel kasii yaab badan, sawir. Bal qiyaas inaad rabto sawir moos, laakiin ma rabtid moos caadi ah. Waxaad rabtaa moos leh af, indho leh, lugo leh, oo gacmihiisa ku haysta buun, xitaa hadlaya. Horey waxaa waqti badan ugu bixin jiray qof sawir yaqaan ah, laakiin maanta waxaad fikradaada ku qori kartaa nidaam AI ah, kaas oo abuuri kara sawir. Waxaad ku oran kartaa, create a funny animated banana walking through futuristic city speaking and playing a horn. Kadib AI-ga wuxuu sameynayaa in ay fikradaadii sawir ka dhigto. Tani waa wax aad u weyn.
sababtoo ah haddii fikrad maskaxdaada ku jirta ay si degdeg badan ugu gudbi karto shaashad. Marka ma AI ayaa bedelaya farshaxanka? Qayb ahaan waxay bedeli kartaa howlo ka mid ah shaqada, laakiin hal-abuurka bani'aadamka weli wuxuu leeyahay waxyaabo gaar ah. Adigu waxaad leedahay xasuus, waxaad leedahay nolol aad soo martay, waxaad leedahay dhaqan, waxaad leedahay dareen, waxaad leedahay sabab aad wax u samaynayso. Laakiin AI-ga wuxuu isku dari karaa qaabab badan oo ay xog ka baratay, laakiin bani'aadamku wuxuu oran karaa waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo sheekadan sababtoo ah tani muhiim ayay ii tahay. Taasi waa farqi weyn. Marka mustaqbalka waxaa laga yaabaa inaan aragno human creativity plus AI capabilities. Bani'aadamku wuxuu keeni karaa fikrado, halka AI-gana uu ka caawiyo fulinta. Codka iyo muuqaalada. Hadda ka fikir cod. Qof ayaa raba inuu sameeyo muuqaal, wuxuu u baahan yahay qoraal, kadib cod, kadib sawirro, kadib muuqaallo, kadib tafaatirid. AI-ga maanta wuxuu ka caawin karaa qaybo badan oo howlahaas ah. Waxaad qori kartaa fikrad, wuxuu ka caawin karaa script, waxaad isticmaali kartaa qalab cod abuura, waxaad isticmaali kartaa qalab sawir sameeya, waxaad isticmaali kartaa qalab ka caawiya editing-ka. Laakiin AI-gu ma wada bedeli karaa shaqooyinka oo dhan hal mar? Halkan waxaan rabaa inaan si cad ugu sheego dadka mararka qaarkood waxay maqlaan AI waxay bedeli doontaa shaqada. Waxay u maleynayaan beri qof kasta inuu shaqadiisa weyn doono. Taasi inay dhacdo qasab maaha. Tiknoolajiyada marka hore waxay bedeshaa hawsha, kadib waxay bedeshaa hab shaqada, kadib shaqada naftirkeeda ayaa laga yaabaa inay isbedesho. Tusaale ahaan, telefoonka muusan wada bedelin baahida qof kasta, laakiin wuxuu bedelay sida aan wax u qabsano. AI-gana waxaa laga yaabaa inay sidaas oo kale noqoto. Ganacsiga iyo warshadaha. Hadda aan eegno meel kale, warshad amba goob ganacsi oo wax soo saar samaysa. Haddii robot uu qaban karo shaqo noqnoqota isagoon daalin, shirkaddu waxay u arki kartaa qalab muhiim ah oo wax soo saar leh. Robot wuxuu shaqayn karaa habeen iyo maalin, ma daalo, ma mashquulo, ma u baahno nasashada sida qofka. Tani waxay kordhin kartaa wax soo saarka, laakiin waxay sidoo kale kordhin kartaa su'aalo. Maxaa ku dhacaya dadkii shaqadaasi hayay? Halkaas ayay ka bilaamaysaa dooda. Shaqooyinka aan si fudud loo bedeli karin. Waxaa jira shaqooyin u baahan wax ka badan xog, sida qof inuu fahmo xaaladda, inuu la qabsado wax lama filaan ah, inuu la macaamilo dadka, iyo inuu qaato mas'uuliyadba. Tusaale ahaan, qof farsamo yaqaan oo hagaajiya tubooyinka uma shaqeynayo sidii program la diyaariyay AI oo kombiyuutar ku dhex jira. Wuxuu taagan yahay meel dhab ah, wuxuu arkayaa dhibaatooyinka, wuxuu taabanayaa qalabka, wuxuu go'aan ka gaarayaa wax meesha ka qaldan. AI-ga waxay ka caawin kartaa aqoonsiga dhibaatada, laakiin robotka awood uma laha inuu xaalad kasta oo noocaas ah si madax bannaan u maareeyo. Weli waa mid adag. Sidaas darteed, mustaqbalka shaqooyinka qaarkood way isbedeli doonaan, laakiin dhammaantooda isku xawaare kuma bedelmi karaan. Hadda aan eegno dhinaca wanaagsan. Qof ayaa ku jira meel aad u kulul, amba meel ay ka jiraan shucaac halis ah, amba dhismo dab qabsaday, amba meel ay ka jiraan kiimikaal khatar ah. Waxaa loo diri lahaa qof, laakiinse haddii loo diro robot, waxaa laga yaabaa inuu soo badbaadiyo nolol dhab ah oo bani'aadam ah. AI iyo beeraha. Hadda aan kusoo dhawaano nolol maalmeed. Beeraha. Mustaqbalka dareemayaasha waxay cabbiri karaan qoyaanka ciidda. AI waxay falanqayn kartaa xogta. Drones ayaa dusha ka eegi kara. Waxaa laga yaabaa inuu inoo ogaado meel uu dalaggu dhib ku qabo. Meeshaas ayaa si gaar ah u waraabin karta. Tani waxay kordhin kartaa biyaha la khasaarinayo, waxayna kordhin kartaa wax soo saarka, waxayna sidoo kale caawin kartaa ruuxa beeraha ka shaqeeya. AI-ga maaha keliya wax lagu sameeyo kombiyuutar. Waxay geli kartaa beeraha, wadooyinka, guryaha iyo warshadaha. AI-ga iyo gaadiidka. Waxaan horey uga soo hadalnay smart city-ga. Hadda ka fikir gaadiid. Baabuur iswada ayaa laga yaabaa inay qofkiisa meel isagoo aan u baahnayn darawal caadi ah. AI-ga waxay qorsheyn kartaa wadada, waxay aqoonsan kartaa gaadiidka kale, waxay falanqayn kartaa calaamada wadada, waxay ka jawaabi kartaa xaaladaha degdega ah. Haddii tiknoolajiyadu ay si fiican u shaqeyso, waxaa laga yaabaa inay yareyso qaar ka mid ah khataraha ka dhasha shilalka ammaanka wadada. Laakiin nidaamyadan waxay u baahan yihiin tijaabo, sharci iyo amni aad u adag. Waxaa dhacaya haddii AI-da ay yeelato awood aad u badan. Hadda waxaan soo gaarnay qaybta ugu qotada dheer. Haddii AI-da maanta ay samayn karto waxyaabo badan oo horey loogu baahnaa, maxaa dhici doona haddii mustaqbalka AI-da ay noqoto mid aad ugu awood badan? Haddii ay fahanto xog badan oo hal qof fahmi karin, haddii ay xalliso dhibaatooyin adag, haddii ay ka caawiso saynisyahanada inay helaan daawooyin cusub, haddii ay naqshadeeyaan mashiinno cusub, haddii ay qoraan software aad u adag, tani waxay noqon kartaa fursad weyn. Laakiin awood weyn waxay u baahan tahay xakameyn weyn.
dadka gacanta qaldan u gala AI-ga dartiis. Teknoolojiyad kasta waxaa loo isticmaali karaa si wanaagsan ama si xun. Sida waxa lagu gooyo cuntada, laakiin si xun ayaa loo isticmaali karaa. Internetka wuxuu dadka siiyaa waxbarasho, laakiin sidoo kale khiyaano ayaa loo isticmaali karaa. Qof wuxuu u isticmaali karaa inuu ku sameeyo muuqaallo waxbarasho ah, qof kale wuxuu u isticmaali karaa inuu ku sameeyo muuqaallo been abuur ah. Sidaa darteed, dhibaatadu mararka qaar ma aha AI-ga keliya, waa qofka gacanta ku haya AI-ga. Marka AI-ga ma bedeli doonaa bini'aadamka? Jawaabtu ma aha haa amba maya keliya. Waxay bedeli kartaa howlo badan. Waxay bedeli kartaa habka aan u shaqeyno, waxay bedeli kartaa habka aan wax u sameyno, waxay bedeli kartaa sida aan wax u barano, waxay bedeli kartaa habka aan ganacsiga u sameyno, waxay bedeli kartaa qaybo badan oo nolosheena ka mid ah. Laakiin ma jiro qof maanta si dhab ah u sheegi kara wax mustaqbalka ka dhici kara. AI-ga waxaa laga yaabaa inuu noqdo qalabkii ugu faa'iidada badnaa uu bini'aadam sameeyo. Waxaa laga yaabaa inuu keeno caqabado oo aan weli si buuxda u fahmin.